wafsi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo weheliyaan Garajaamac Garas Ismaaciil Cuqaal waxgarad iyo odayaal ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay deegaanka Tukaraq Burhaan Boqor Muuse iyo wafdi oo hogaaminaya oo ka soo kicitimay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland boqor waxa ku soo dhawaatay dawladda Soomaaliland ciidda Soomaaliland anigu waa wasiirkii wasaaradda biyaha ayaan halkan ku fadhiyaa waxaynu geli doonaa insha Allah la saacanood si nabadgelyo حبض هي نبتقلي دهرات دمنا halkan ku dambayso ku soo dhawo boqor ciidan waxaana markii waftigan ay soo gaareen deegaanka Tukaraq loo soo galbiyay dhinaca magaalada Laascaanood iyagoo Garajaamac Garas Ismaaciil uu waftigan ku qaabilay qasriga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood waxaana ugu horeyntii saxaafadda la hadlay Garajaamac Garas Ismaaciil isagoo waftigan ku soo dhaweeyay gobolkan Sool marka koowaad halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wafti ballaaran oo dhammaan Jubaland iyo Puntland iyo geyga Soomaaliyeed iskaga yimid oo hogaaminayo boqor Burhaan Boqor Muuse oo ay ka mid yihiin ugaas Xuseen ugaas Qorane oo Jubaland ka yimi iyo Suldaan Jaamac waxa kale oo maraya ugaas Xasan ugaas Yaasiin waxa maraya Suldaan waxa maraya Suldaan Burtila salaadiinta wixii aan ka tagay waxaan u malaynayaa raali hayga ahaadeen Suldaan waxa weeye Ciise Maxamed Ciise isna maraya waftigan waa wafti ballaaran weey tiradooda sida noo sheegay waa 60 qof weey waxay u socdaan nabadayntii labadii arday ee walaalaha ahaa waxa weeye in ay una soo tacsiyadeeyaan waxa weeye siyaasad uma socdaan hawl kale uma socdaan dalkoodii bay yimaadeen boqorku dadka Soomaaliyeed oo dhan boqor buu u yahay soo dhawow waan ku leenahay boqor odayaasha culimaawidiinka gabdhaha saxaafadda dhammaan akhyaarta iyo waxgaradka halkan nagu soo dhaweeyay dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxay aan oran lahaa ama kelmadii aan oran lahaa halkan waxa ka yeeri salaadiintii hadashay ugaasyadii hadlay inkastoo ugaas Xasan ugaas Yaasiin oo runtii wadankaana ka soo shaqeeyay oo mas'uul sarana ahaa runtii aan jeclaa inuu kelmadiisa halkan ka yiraahdo laakiin intii oran lahaa iyo intaan oran lahaa inta baana isku dari doona insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii soo dhaweynta iyo qalbiga furan iyo walaalnimada iyo ehelnimada aadna tusteen oo waxaan maskaxdayda ka bixi doonin ووحنا نلاوي دونين ووحنا إن شاء الله كأبل جود دون إلهي ذنكيس أنا جماعة همركي الرئيسي وأنا كان ماذا أنا جاي وفتي هالكم فدي مريا قريبا كم يدي هري يانوني مدول كان دجان كهري بانوني مي سيدان يسين لم يدا يانو لو سو دويي وحنا الله يا هاي إلهي هيدين بركيو magaaladana magaalo khayr oo horumarta Ilaahay ka dhigo sida loo sheegay anagu waxaan u soconay inaanu soo aragno oo aanu soo dhexmarno shaqaaqadii iyo dhibaatadii ka dhacday koonfurta magaaladan Laascaano oo dadka ehelka oo walaalka isku laayeen